بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا سمع IT tutorials iyo casharadii data structure-ka iyo cashirkii 27 cashirkan waxaan kaga hadlaynaa hadduu alidmo stack data structure stack wuxuu kamid yahay noocyada data structure ee la isticmaalo waxaa la yiraahdaa stack waxa uu yahay linear data structure waa qaabayn xog oo loo qaabeeyo xogta qaab isku xigta in loo store gareeyo that flow is taasoo markaas raacda principle-ka ama xeerka la yiraahdo LIFO ama LIFO oo la yiraahdo LIFO waxaa laga soo gaabiyay last in first out elementiska marka la keydinayo stack sharcigiisu waxa uu yahay elementiga ugu dambeeyay la keydiyay ayaa waxa uu noqonaa kan ugu horeeya ee la isticmaali doono marka elementiskaasi la isticmaalayo stack sidiisa waa simple waa in la fahmaa oo fududahay waxa tusaale ka soo qaadataa uu leeyahay plates saxaman ama suxuun marka keedinaysid saxan walba waxa la kor saaraa saxan kale ayaa la kor saaraa marka aad u baahataa inaad saxamanka aad isticmaashana midka ugu koreeyay ayaa qaadaysaa top mar walba midka kor saaran ayaa qaadaysaa buugaagta kamid ah buuga ugu koreeya ka qaadaysaa kan ugu hooseeya dartiido kale ama ka dhaxda ku jirta aragtid kuwa koreeya ka qaadaysaa sidaas marka stack la dhahaa stack mar walba xal dhaha LIFO principle isticmaala oo ah last in first out kii ugu dambeeyay ee soo galay xogtaas ayaa ah kan ugu horeeya ee baxaya stack marka la joogo marka operations la sameeyaa jiro labada operation ugu muhiimsan ee la sameeyo waa push iyo pop operation kale peak la dhahay waa u jira operation kale muxuu ahaa xogta aad empty haduu yahay ajagreynaysa waxyaabo soo jira laakiin labada ugu muhiimsan waa push waxa uu yahay marka element ku dareysid stack waxa uu yahay element marka ku dareysid waxa la push add element to the top of the stack top kiisa meesha uu koreysa element ku dareysa mar walba elementiga aad ku dartay hadaa mid kale soo gelisid kan kii hore muxuu ahaa hoos u aada kan cusub aad soo gelisaa kor maray ma loo pop na waxa la yiraahdaa waa removing marka sameynaysid oo aad element ka bixinaysid kan ugu horeeya ayaa mar walba ka bixinaysa oo ka qaadaysa tusaale marka hadaan rabno marka inaan fahanno python-ka waxaan isticmaalaynaa python list ayaa isticmaalaynaa si aad u fahantid stack-ga listigan hadda waa empty functions ayaa isticmaali doonaa si fudud u fahantid stack-ga function-kan waxa ay tahay push function waxa ay elements ku dartaa stack datadan xogtan stack listigan ay element ku dareysaa element u soo gudbinayna ama item u soo gudbinayna itemkaas marka u soo gudbino stack listigana wixii doonaa ka bacdi waxaan dhigi doonaa append ku dar itemkaas listiga ku dar dan xogtana daabici doonaa waxa ku dartay ama push waxa ku sameysay item muxuu ahaa ku darta waa hadii aan rabnayna item ka bixinna waxaan u wici doonaa function-kan oo pop pop maxay sameyn doontaa waxay jagreynay marka koowaad hadii stack uu empty yahay hadii kale wax ay ku jiraan hadii ay wax muxuu ahaa wax ku jirin oo empty u yahay qaybtani u soo boodaysa stack empty way leedahay hadii laakiin ay wax ku jiraan oo xog ay ku store gareysantaa ama items ay ku store gareysan yihiin item-ka ay pop sameyn doontaa pop function waxa waa midka uu koreeya ayaa mar walba la bixin doonaa automatically waxaan la daawici doonaa item muxuu ahaa ka bixisay peak waxa uu yahay kaliya inaad ogaatid elementiga ugu koreeya stack marka elementiska aad isdul saartid ama qaabkaas u keedsamaan midka ugu koreeya inaad ogaatid peak ayaa ku ka saacideysa sidee u daabicaysaa simple marka aad condition-ka daabicaysid printed aad daabicaysid ayaa waxa leedahay stack waxa u baas gareynaysaa -1 waxa uu yahay marka aad leedahay listiga -1 aad siinaysid inta badan listiga qaybta dambe ayuu ka soo tirnaa -1 midkii ugu dambeeyay ayuu soo daabacaa saas marka waxay ku daabicaysaa top of the element uu koreeya ayaa sidaas ugu daabici doonaa kanna waxa uu ku tusinaa simple function-kan kalena waxay ku tusinaysaa contentiska inta xogo ku jirto stack-gaas hadda fiiri marka aan rabno marka inaan isticmaalno push function aan wacna push function marka uu wacno a u gudbinay hadana mar kale uu wacnay b u gudbinay hadana mar kale uu wacnay c u gudbinay marka koowaad maxay sameynay marka stack-ay u wacaysaa waxay ku daraysaa item-ka u soo gudbisay a hadana mar labaad iyada u soo wacnay b hadana mar saddexaad c qaabkay u keysami doontaan waa qaabkan ay noqon doontaa oo data structure-ka ee hoos ay tagi doontaa b-da u soo kormari doonta c ayaa ka sii kormari doonta qaabkaas ay u keysamaysaa marka aad qaabkaas aad muxuu ahaa u keydino xogta aan ugu push gareyna ama ugu darnay hadii aan u wacno function-kan peak waxay noo daabici doontaa waxay leedahay c ayaa ugu koreysa c ayaa elementii ugu koreysa hay hadaan pop dhahna maxaa soo bixi doona pop hadaan dhahno c waa laga bixin doonaa stack listiga waa laga bixin doonaa b ayaa waxay noqon doontaa mid ugu koreysa
xogta hadaa fiirisidna A iyo B ayaa meesha ku jiri doonta hadaa intaan ku daabaco waxa arki doontaa fiiri waxaan ku darnay stack waxaan ku darnay A ku darnay marka koowaad B ku darnay C ayaan ku darnay top of stack waxaa noqotay C ayaa ugu koreysa haddana C dii waa la bixiyay yaa ugu kormarayo markaan B oo ah elementiga B da ugu koreeya iyada asaga ah maadaama C la bixiyay contentiska marka soo harana waa A iyo B marka labadaas ayaa soo haray haddii aad rabtid taa waa sii bixin kartaa waxaa dhihi kartaa maadaama A iyo B ay soo hareen pop function hadaa mar labaad inta u waco aan dhaho waxaan bixinaa tusaale ahaan oo kale waxaan bixinaynaa kasoo qaado kale pop le wacaysaa waxaan bixinaysaa ama sheegaysid pop bis markaad tiraad element ugu koreeya ay symbol bixinaysaa element ugu koreeya markay bixiso kabacdina waxaan leenahay peak noo daabac peakton waxay ku tusinaysaa elementiga markaas ugu koreeya haddii la bixiyay b da haddaan bixinay elementiga ugu koreeya dabcan A uu noqon doonaa markaan daabacna maxaa soo bixi doona fiiri haddaan daabacna marka koowaad C ugu koreysay C dii waa la bixiyay B da ugu koreysay stack waxa ku soo hartay A iyo B ku soo hartay Soomaaliha sorry aan save gareyno si aan u daabacno xogta okay marka aan daabacna hadda waxa arkaynaa fiiri B dii waa la bixiyay puppet P dii waa la bixiyay oo top of stack waxa ay hadda marka A ayaa meesha ku soo hartay contentiskana waa A kaliya ayaa meesha sidaas ugu soo hartay xogta qaabkaas waa very simple stack in la fahmo aad u fududahay sidoo kale waxa ogaataa kan waa Python ka marka qaybtan kalena waa C++ ka C++ kana waxaan isticmaalaynaa data type ka stack ayaan isticmaalaynaa factor ayaan isticmaalaynaa dabcan symbol intaan information idana waa inta hadda aan soo sharxinay oo ah functionska pop iyo push iyo peak functionska hadaa u baahan tahay marka C++ iyo muxuu ahaa inaad isticmaasho isagana video description kiisa ka arki doontaa hadaa rabtid inaad daawacatidna muxuu ahaa anaga hadda waa soo diyaarinay output aan qorno waxa arkaynaa automatically waxaan arkaynaa sida xogta aan ugu darnay elementiga ugu soo kormaray iyo elementiga ama contentiska inta ku hartay hadaa element bixino kasoo qaado kale inta ku hartay iyo elementiga ugu koreeyay qaabka ugu dareen xogta meeshaas ay ku soo daabacmaysaa dabcan stack marka waxa uu yahay waa very simple isaga aad ayuu u fudud yahay oo stack wax kale ma ahan waxaan dhahnay waa linear data structure xogta marka keedinaysid inaad u keedisid xogtaasi qaab linear ah maadaama linear data structure ku kamid yahay linear waxa waaye in xogta isku xigto midba midka kale uu ku xigaa linear la dhahaa xogta isku xigta sequential order marka loo keedinayo xogta ayaa waxa la dhahaa linear data structure waa qaab kamid ah qaababka xogta loo keediyo stack marka meeshan xirkiisa asagoo goonida uu wato maxay marka stack wax kale ma ahan waxa isticmaali kartaa area isticmaali kartaa ama waxa isticmaali kartaa linked list isticmaali kartaa ama sidoo kale waxa list da Python ku joogtid area da Python badalkeeda list ku ah stack marka wax kale ma ahan waxa uu yahay kaliya xeerka qaabka wax u keedinaysid inay noqdaan element kasto elementiga kale inuu ka kormaro hadhowti marka aad isticmaalaysidna kii ugu dambeeyay ama ugu dambeeyay ee meesha soo galay in la hor bixiyo ama la hor isticmaalo xeerkaas ayuu stack waafaqaa cashirka marka kaliya ujeedkoodu wuxuu ahaa very simple inaad si fiican u fahantid kaliya si fudud u fahantid qaabka stack loo isticmaalo iyo xogti sida u keedsamayso data structure cashirka xiga inoo badan ah wabillahi tawfiiq